suuradda tani akhriskeeda ilaahay idinkiis waxaad ku helaysaa riyooyin cajiiba oo la yaab leh. ruuxiyow ma ku riyootaa riyooyin la yaab leh oo argagax mararka qaarkood kuu sababa? mase aragtaa naftaada inay mararka qaarkood ku dhex jirto marka riyada dhexdeeda la joogo cabsi meel ah ama daal ay dareemayso? arrimaha noocaasa ma ku riyootaa ruuxiyow oo hurdadaada dhexdeeda ma ku aragtaa? mase hurdada ka soo toostaa adoo daalan waad moodaysidba waxaa riyada ku dhex arkaysay ina adigu aad samaysay? waxaasoo dhan waxay tusayaan shaydaanka kula jira qarinka loo yaqaan inuusan deganayn. sababtu waa maxay? sababku wuxuu doonayaba ha noqdo waxyaalaha aad ku riyoonaysid ee lagu tiriyo dhinaca caafimaad darrada ee saamaynta kugu leh, tusaale oo kale sixir iyo xasad iyo wixii la midka ah. waa arrimahaasoo dhan waxba ha ku fakerin. muhiimaddu waxa weeye inaad ka takhallustid noocaan iyo dhaqankan baa muhiim ah. su-aashu marka soo noqonaysa waxa weeye sideen ooga lugbaxaa? waxaasoo dhan wixii doonayaba ha sababeen arrintaad oga lugbaxaysid waa suurad qur-aanka kariimka ka mid a. dhammaan qur-aanka kariimka waad oga lugbaxaysaa, laakiin tijaabooyinka la sameeyey lagu guulaystay wax taray suuraddan ayay tilmaamayaan. intaada seexan marka suuraddan hal mar akhri. ma badna suuraddu, waa beyj iyo nus, xataa 2 beyj iska dheh. suuraddan waa suuradee suuratu insaan weeye. hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura. juskay ka tirsan tahay waa jusku tabaarak, ma foga. waa suuradda u dhexaysa suuratulqiyaama iyo suuratulmursalaat. inteena badan waa garanaynaa. markaad seexanaysid soo weysayso adoo daahiroo nadiifoo dahaaro dhammaystiran ku sugan, waayo weysada laftirkeeda siro badan bay kuu soo jiidaysaa, waxyaalo badan bay kuu furfuraysaa arrintaasi la xiriira. markaad soo weysaysatid oo firaashkaada tegtid hal mar suuraddan akhri adoo niyeysan khayr iyo faraj insha allah. natiijada waa arki doontaa ilaahay idinkiis. muddo laakiin isla markii maaha, maalmaba ha qaadatee. iyadoo la dhihi karo xataa muddo hadday qaadato way kuu soo degdegtay. sida haddaad samaysid waxaanoo dhan ee cabsida leh aad ku riyoonaysid waa qarsoomayaan, waa cararayaan. laakiin waxaa markay qarsoomaan oo cararaan sii joogtee oo sii wada akhriska suuraddan. sababtu waa maxay? leanna muddadaa kadib insha allahu tacaala riyooyin qurxan baad arkaysaa oo fiican. dadkeenna inta badan markay arrinta ku caafimaadaan ku daawoobaan kasta markay uga caajisaan oo iska daayaan. maya wad. marka u baahan tahay oo keliya qur-aanka looma soo cararo, xilli walba loo soo cararaa. sii wad marka. waxaas hadday ku dhaafaan riyooyinka noocaasi argagaxa leh haddayn wad akhriskeeda. riyooyin qurux badan oo kuwa khilaafsan ayaad arki doontaa insha allah. halkaas haddaad gaartid riyooyinka quruxda badan ayada laftirkeeda sii wad oo ha joojin akhriskeeda. sababkuna waxa weeye riyooyinka qurxan aad arkaysid way ku xaqiiqoobayaan. yacni waad arkaysaa xataa riyooyin qof ku riyoodo inta badan marka qaarkood waxaa dhici kartaa inuu si reality oo muuqaal ah oo rasmi u arkaba. marka riyooyinka quruxsan ee aad arki doontid ee aad ku riyoon doontid si rasmi ah oo soo jeed aad u arki doontaaye sii wada akhriska insha allah. qof walbana fariintaan u diraya waxaa weeye qof iyo waxaad xasuusataa weligaana maanka ku haysaa oo ma baahnid wax tiro badan oo weyn inaad samaysid si noloshaada aad u beddeshid. keliya shay yar inaad laasimtid oo aad joogtaysid baad u baahanta. kaasaa kuu damaanad qaadaya noloshaadu si wanaagsan ay isku beddesho, si wanaagsanna horusocod u yeelato. laga yaaba mararka qaarkood wanaag aadad filayn iyo horumar aadad filayn inaad la kulantid. shayga yarkaa lagu tilmaamaya ee fudud joogtee oo ma baahnayd wax tiro badan inaad qabatid, wax badan inaad akhrisid, wax badan inaad samaysid si noloshaadu isu beddesho. shaygan yara lagu sheegaya joogtee ha ka daalin. insha allahu tacaala noloshaadu horusocod wanaagsan bay yeelanaysaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu ka baryaynaa oo aynu weydiisanaynaa in adduun iyo aakhira una barakeeyo, guushana uu nagu simo. ilaahay dhammaanteen riyooyinka wanaagsan ee aynu ku riyoonaynaa ha noo xaqiijiyo. dhammaanteenna xasanaadka ilaahay ha noo kordhiyo. sheergareeh oo la wadaag dadka kale. lacala laga yaabo riyooyinkan argagaxa leh ama dhib kale ama cabsida leh dad ay haystaan in uu fiidiyogan sheergarayntaada iyo la wadaagaada sababtiisa uu ku gaaro, kadibna aad heshid buuro waaweyn oo ajar ah, miisaankaada xasanaadkan uu koro. markaad sheergaraysid oo laygta siisid kusoo biir channelkeena, waayo dhiirigelin baa noo tihiin inaan idiin soo gudbino barnaamijta muhiimka ah oo waqti badan idinka qaadanayn laakiin faa'iido weyn ku fadhiya. subscribe-ka, laygta, sheerta siiya insha allah si dhammaanteen liibaanteenna iyo guusheennu ay waasic usii noqoto, usii ballaarato. waxaa idiin rajaynayaa dhammaantiin guul iyo farxad dhammaystiran oo ballaaran. baaraka allahu fiikum.